wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Professor Farah Cilmi Geedole iyo maayirka degmada Burco Sheekh Maxamed Yuusuf Muraad ayaa kala saxday wajiga labaad ee heshiiska mashruuca maamul daadejinta waxbarashada ee dawladaha hoose waxaana sidoo kale ay dawladda hoose ay ku wareejisay wasaaradda waxbarashada 100 kursi iyo sidoo kale 100 koodi miis ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay maayirka degmada Burco Sheekh Maxamed Yuusuf Muraad iyo sidoo kale gudoonka wasaaradda waxbarashada ee heer gobol waxaana yiraahdeen 3B ga la yiraahdo saddexda berbera burco iyo boorame sanadkii koowaad waan ka soo baxnay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu mahadnaqaynaa in sanadkaas wixii na qabtay dawlad hoose ahaan barnaamijkan saddex geesood weeye dhaqaalaha ku baxaya oo dhaqaale badan gees qayb waxa bixinaysa dawladda hoose degmada burco qaybna waxa bixinaysa wasaaradda waxbarashada qaybna waxa bixinaysa hay'adaha naga caawiya xagga waxbarashada iyo maaragtay waxyaabaha noocaas GBLG ayaa bixinayay waan ku guuleysanay waxyaabo badan ayaan dugsiyada ka qabanay halkan iminka dibadda ilaa 200 oo shay oo aanu sameynay oo ugu dambeeyay baan ku wareejin doonaa wasiirka hadda fasallo cusub waanu dhisnay iskuulka baanu ka dhisnay General Ali Hussein waxaanu ka dhisnay dugsiga xaafadda Gariga iyadoo taas sanadkii hore ay haysatay ayaanu haddana ka soo baxnay wixii aanu heshiiska ku galay yaanu wasaaradda waxbarashada iyo GBLG-ga heshiis kula galay maanta waxaan rajaynaynaa sanadkii labaad maadaama aan saxiixayno anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Burco in aanu ka soo bixi doono insha Allah waliba annagoo mudane wasiir intii aanu sanadkii hore aanu ku ballan qaadnay aanu qabanay sanadkan waanu ka kordhin waa la socotaa waxa weeye barnaamijka maamul daadejinta tijaabada ku ahaa 3 degmo oo dalka ah sida runtii laba degmo si fiican bay uga hergashay sidaan kula socdo oo degmada Burco iyo degmada Berbera kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inay sidaas oo kale iyagoona hore talaabadaas oo kale hore u sii qaadaan marka sanad baa dhamaaday sanadkii labaad ayuunba halkan lagu kala saxeexanaya sidii mashruucaas u fuli lahaa barsaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusumaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Diiriye Xayda oo hadallo kooban ka soo jeediyay munaasabadaas ee heshiiska ku kala saxeexanayeen maamulka degmada iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland mudane wasiir waxa halkan uu maayirku iyo gulihiisa deegaanka aan gobol ahaan aad iyo aad u soo dhaweynayna mashruucan sanadkii hore dhamaaday maantana kala saxeexanaysaan ee maamul daadejinta waxbarashada golahan deegaanka ee cusubi intii ay joogeen ma aha oo waxbarashado kaliya tacliinta sare ka qayb qaataan saaw sheegay caafimaadka ka qayb qaataan oo 5% ay siiyaan gobol ahaan waxay naga dul qaadeen annaka oo dawladda dhexe ka mas'uula wax aad iyo aad u ballaaran lagu ilaahay loogu mahadnaqi karo ilaahayna waxaanu ka baryaynaa tan maanta mar labaad aynu kala seexanayno in ayna ilaahay ku guuleeyo Professor Farah Cilmi Geedole wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo halkaas hadal ka soo jeediyay gabagabadii ayaa waxa wasiirku uga mahadnaqay dawladda hoose ee degmada Burco sida ay uga soo baxday wajigii koobaad ee mashruuca maamul daadejinta waxbarashada ee dawladaha hoose waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arinta farxadda leh ee maanta halkan xafladan aan iskugu nimidnay arintaasoo arin horumar ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mashruucan GBLG-ga oo hadafkiisu yahay inuu qofka tuulada jooga ama degmada joogay أو نقطة كتلة بحنايا هنا تلة كيمن حاجة سرة أو يسقو أو يهاي وحاساي قدمانه وحا هلا يقبطه هل كاسي باهيدو جرتا كيسقو دورانيا سيدا درتيد با دوغا مقالدو وكمسولة دقمدن يتولوين كيغا أو يسقو باهيدا تالا أو تلماميو مشروعاً سدح جيسود كا الدولة الدحة الدولة هوسة يهياد أيسك كاشانيان وحوها سنة كهرمت بايلوتا وتجابة وحنا دوغو فرح سنة مشروعاً وحبرشة أو كيو جهرية للتجابية
isla markaana saddexdan degmo ee uu meeyarku 3B-da ku sheegay waa Burco, Berbera iyo Boorama lagu tijaabiyey inuu sidii loogu talagalay si ka fiican loo qabto sida Maxamed Muraad hadda iskuuladii furniture-koogii light-koogii biyahoogii iyo waxyaabo badan oo kale aan isaga laga sugaynay u qabteen. intaasi kadib wasiirka iyo maayirka degmada Burco ayaa kala saxday heshiiskaasi iyadoo sidoo kale wasiirku uu kala wareegay maayirka qalabkani waxaana wasiirku ku soo wareejiyay agabkani gudoonka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer iyadoo qalabkaasi si rasmi ah loo wareegeen maamulayaasha 6 dugsi oo qalabkani loo qaybiyay. waa Khalid Axmed Maxamed Khalid Bakeyle muuqbaahiyaha caalamiga ee Star Burco.